wasiira maaha ilma adeerayaal nin isaguba xil haya ma iman karaa magaalo kale may adaan ku dhiibay yaxbulow maanta markaad xil hayso ama aad ciidantay ama aad u shaqaysid dawlad ama aad wasaarad ka shaqaysid ma iman kartid magaalo kale waa sax ma iman kari waa sax laakiin markaad yaxbul iska taalka iska joogtid waxa weeyaan aanad xil la haynin maca haddii qaar ku yar daandaansadaan bes waa la iska kaa dhaafayaa صح لكن كده يا وفلبا موبلكن دبديسو كسو هادليا ميديا لا جوغا waxaan dhalinyarada kala fogeynina imika dhalinyaradii taageertay Puntland dad baa caayay reer Puntland صح oo laha anaga Somaliland xabad baa naga dhaxaysay maxay noo taageeri halkee xabadu naga dhaxaysaa كويس reer Puntland baa caayay dhalinyaradii reer Somaliland ay taageertay ما مقليسا قان قرنay marka anu waxa jiray dadka la kala fogeynayaba dadku afkay mali fiiri okay ما مقليسا queen of garacad inaad roog salaam soo dhaw fiiri mid man ku sheegaya qaan qaranay dad iska sheeg fiiri qof afka soo xirtay aad aqoon wuxuu yahay wax muu qaban ka dhaado su'aal baa ku weydiiyay tan anigu maanta ka hadlay waa taa alla waxa u qabanina yaa la idin kala dilin ها وما قبل كرو او وجهي سيبا لا اركين اوكي او ما قبل سمع اوكي انا يحبل اي تقانيد oo la yaqaano oo media ku jiro hadda anta halkan soo ful aan dhoosaas sida markaas waa meesheed ama qof la yaqaano ku jira qof la yaqaano iyo dhalinyarada la yaqaano ay ka kuwi dhalinyarada ugu caasana ee reer Puntland baa yiri waa ku mahadsantii Somaliland taageerada noo muujiseen beerka ana ba hadda kula waa ku mahadsantiin way ku mahadsan yahay ana hadda kula yaxbula حابين تقول شيء يا هذا dadku waa dad wada dhashay oo meesha dadku soo duulay wabillaah toof inta sweeyba laakiin dadka kale aad la aqoon inta uu xiran yahay oo meel soo furtay qadaraya qof ana meesha tu baraac baa jiro soo dhaxduntaa soo moogin waa soo dhaxdumanaya waa la isku soo dhaxduntaa hatta waxa jira dad yaro gift iska doono oo doono inay dadka kala dilaano yaani iska dhigayo inay qadiyadu dhab ka tahay oo qadiyaduna dhab ka ahayn صح oo doonaya dadkana inay kala fogeeyaan haddaan maanta markay reer Somaliland ay taageerayaan reer Puntland reer Puntland ma waxay yidhaaheen kaalayo xoolana siiya kaalayo nafta noo hura kaalayo in noo dhinta ma yidhaaheen waa moobilka waxa laga taageeraya yuhuudigaba waa taageertaa صح kubadda cagta la kala safanaa macdalo dad dhiig kula ah oo kula dhashay oo lagu soo duulay ma maqlaysaa qaranqaranay ciyaal yar yar ah oo community ku dhiilay ah iyo qof qol iska furtay ii sheeg waxaas waa ii sheeg muxuu ahaa yaa waxa oo qaban dhalinyarada baraha bulshada ku jiwiilay gaarba la yaqaan way ku maasan yihiin reer Somaliland sida sharafta badan ay u taageereen Puntland aad u maasan yihiin dadkuna markay xaaladaas kala jidho in la taageero waajib weeye annaga booskeena ku saabsan taageer dadkan kale oo iska caqdadaysan waxaas waa si qiyaali weeye waxaas adiga waxba ii shaqo qaranay aad aqlo leedahay wax taa uga ii baashal na alla 19 alla maxaan caydi ka bart bahal yow u eeg fircoonkii weysada u shubay fiiri cayda ii soo badiyo cayda fiiri qaranay mid baan ku sheegayaa maqal inta degin ninkaas Idris Bebe afbiicha la dhaho waa horta waa nin si qaldan u raadiya dadka isku dira نعيب كفوجاري هذا مال Somaliland مال Puntland dadku dhigan oo hadba dadkii نعيب ka buujinay marka ninkaas waa iska fuse raadis weeye taa la soco adaqle wala taa la soco bas hay ayda iso bad luuqa iso dhig 19 mido eeg mid fircoon eeg mid orad nafta lagaga qaadayo igu salaa saaxiibkaagi ayda yaqaaneen qoom waa ku saamaya guulayso ayda iso bad dhadibaash dadka ku caaye ايه وبالله توفيق وواجب بسم الله الرحمن الرحيم اوكي قدن قرن هذا maxay cadeysay Idris Bebe inuu ma la maqlaa horta dhagaha ma marbi caliya noqdaaneen ma la maqlaa okay fiiriya mid baan sheegaya ninka dhahayaan Idris Bebe
وأنا عقدات بدوية أفرع تنكر بلنا فيري قلب ما أنتنا نشيء قلب مرة بيروح لا دجالنتي على الشباب بلا دجالنتي وسل سومهن يا ملهاس أنو خوارجتا dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ku soo duulaan hadaa reer Puntland nahay dadkaas lagu soo duulay waa u helinaa waana taageernaa qawaarijtana meel baa ugu soo wareejinaa dhaqaale kaama rabo hiil kaama rabo waa isku filanahay halkaas jooga maanta Daacish oo caalamka bariga dhexe ka yimid baan soo afjaray oo wax yar firxadkoodii waxa ay dhiman yahay aan bari soo afjarayo idris baab cudad ciidanka maanka waxaas waxba kaama gooso hadda qalanqana halkaas cadeysay maanta inuu idris baab afbiijo baaster yahay wiilashii halka lagu xireenay ee rag istagaaleen ee waxba ahaynba ee dawlad xirinba dawladda cusub oo timid ee sheeg cirro hogaaminayo waxaas kuma mashquulshaba waxaas uma jeedaba marka idris baab afbiijo waa cuqdadeyste aan laga cuqdadeysnayn oo waxa weeye yahar laga yaharsanan weeye bastard hadda maanta fiyo soo dhiyo soo oynayo maxaa aniga loo bilmaameysada maxaa wareede laba qof ama qof shakhsi hadii meel lagu qabto de qabiil ma matali karo bastard iyo afka biisada xoolaha meel kasta fiyo qaldan baa ka galaya idis bebo sagaashik hadaad Puntland ka hadlin fiyo ma helaysidba inta wuxuu rabaa commentigan loo camir fiyo u qarxaba marka meeshan waa la isbartay maalmo gudahoodna Daacish waa laga soo jeesanayaa firxadkoodii wax yar ma inta la qabtaa buul loo tumanaya waa la soo afjaraya laakiin maalintii ay wax yar anu hadda hadal macnaha waxba hadda laga tigimayo laakiin waa isbaran doonaa waxba aniga dimaad wariyaha ciidanka annaga fiiri billahi tallahi boqol kun oo wiilo halkaas buud wax kula tumanayo yaaba waxa qabtaan had ciidan dagaal galeen la hawla wala quwwata illa billah meeshan waa la isbaranayaa Daacishna buud baa wala tuntay Puntland waa guuleysatay fariinteedii ugu horeysay meesha u soo galeen waxa weeye reer Puntland nin dhalinyaro oo reer Puntland ama gabar reer Puntland hadii leef soo furto oo anama ciidamada ku tuugsato ka laaba koombadaas laga laabo saa uga laaba waa beenlooyin waa dhaqan xumo waa erab daro waa isheeg waa qiyaali waxba kama jiraan ha laga laabo koombadaas anaa yaxbana inay sheegaya haddii ciidanka la damcaan lagu tuugsado qof kasta ha ahaado qof kaste anoo yaxbula haddaan dhaqdhaqda aan la imaado iga laada madaxana ka dhiga saara waxaas waa qiyaali weeye ciidanku isku filan yahay saanad waa haystaa hub waa haystaa waxaas waa daciifnimo iyo dulinimo qofka ka suurtoodana waa daciif dhalay weeye wallaahi qofkii ka suurtoodo waa daciif weeye daciif aan laga daciifsanan weeye daciif dhalay weeye kii waxaa ii soo haray yacquub afbiijo yaa ii soo haray yacquub siyaad daacish kala jirna afbiijo waa naflacaari weeye naflacaari aan laga naflacaarisanan weeye kaas wallaahi waxaa ii sheegay jarmalka asagoo dad bariyana gargariiraya aniga diltooga shaale laga xukumay waa la xukumay waxa dhuuso u qabtay saxaafku u noqon baasir kala jirin wiil dhiigiisu qoyan yahay buu ku diganayaa ciidan aanan dhiman buu dhahaya way dhinteen waxaas yaad hadda dhalinyaradii taageeri jidhay iyo wixii meeyadeen iyo kuwii ka runta ogaadeen dee wixii meelaha uga qeylqeylin jiray meeye wixii meelaha ka qeylin jiray oo yacquub afbiijo inuu Daacish yahay Soomaali yacquub siyaad waa Daacish weeye karbaaskiisana u qaadanaya inta la soo qabanayo asagoo saa u jeebeysana saas garow horta ma way imaan kara garow anaa waxa iri waa u celinayaa yacquub siyaad afbiijo garow imow hadda xiniya leedahay garow lug soo dhig anaa hadda kule anaa iri anaana dhahaya baasirku kala jirinoo afka biijadaayo dulligaayo daacishkaayo xoolahaayo dhaqankaayo axmaqaayo wallaahi waa wax dhintay weeye kaas wax dhintay weeye waa tinihii baa ka biibay suu been u sheegayay wuuba iska dhaaranayaaba puntlandnimada iyo shakhsiga muxuu ahaa qofka shakhsiga markaas haystaan iyo puntlandnimada labay kala tahay
laba inaa kala saadha anoo yaxbal haddaa maanta qof isqabanno dee buntlandnimada ay la weyndee inta meel usoo fadhiiso buntland ciidankayga iyo dadkayga ma caynayo beenna kama sheegayo kumana diganayo khiyaalna kama sheegayo yacquub siyaad afbiijo yacquub daacish wuxuu ku dhaqmay waa ogtiin in la xukumay dhalinyarada waxaas ku shidho kowaantooba ninkii dhalinyaraa oo la yaqaano oo isku daya inuu waddada afbiijo raaco sida yacquub afbiijo loo xukumaya lagu xukumayaa qaliilkiina xataa kuma soo sideyn karo wallaahi waxaa doonta haddaa sheegtid wallaahi huud iyo ancaam haddaa aqrisid kuwaa daacishka baa la mid tahaa huud iyo ancaam haddaa aqrisid kuwaa daacishka baa la mid tahaa oo buurahaas lagu dilayo oo wasaqdaayo dalka soo weeraray hadalku inuu cad yahay baa fiican anigu maalmahana hore waa soo fadhiyaa update baan ahay idinkaan ay soo kacsaday marka waxaan iska helna baa leedihiin kii daacishana fartaa lagu tilmaamayaa kii baastana runtaa loo sheegayaa kuwa meelaha kasoo qalqeeyo idris beeba afbiija ka mid yahayne oo cudada haysane waa la karbaashayaa waxa la isku qareynaya ma jidho adeer baasha idinkaana soo doontaan cibaadaysa cindii ku haya danaba ciyaaraha baa ugu celin hadalku waaba intaasba meeshaan acla ma rabo ciidanka buntlandna waa guulaysteen wax yaraa u dhiman wax yarkaana beri aan masaadan baa lasoo afjarayaa wabillahi tawfiiq ciidankuna hub waa haystaa saanad waa haystaa dhaqaalo waa haystaa guul iyo gobonnimo kuwa damca inay ciidan ku tugsadaan oo leefanka soo furtaan war kowaantooba war wallaahi billaahi tallaahi saaxiibkayga qaaliga ama walaalkii dadka ii xiga hadduu intuu leef soo furto uu kaga hadlay ciidamada iyo arrimaha oo damca inuu ku tugsado koon isku qaato libaxa diyaar ku raadsado wallaahi billaahi tallaahi qofka ugu horreeya karbaashaya waa aniga Omar hadda maxaa soo dagaalay Omar aniga hadda waa i baloogay wuxuu igu baloogay wax kale maaha waxa u qoray war Omar oo xishood nuwen baa tahay ciidanka ha ku tugsan intaas naceeb maaha waa i baloogay muxuu igu baloogay inuu tuugiyuus og yahay haddaan anigu hadlo dadku waa ka soo deganaya gabdhihiina habeenkii qalanjo Soomaaliga hore waa ka soo degtay maan ka carreen marka ninka Omarna waxba ka si ah Omar waa nin ma isku dhaxyaacay baan maleynaya Omar waa nin isku dhaxyaacay marka anigu waxaan leeyahay guul iyo gownimo guuleysta odaygu xiisada waa bixinaya iska muxuu ahaa hal saac ama 30 daqiiqo 40 daqiiqo leef awaan la joogaya maalin kasta arrimaha xasaasiga waan iga daba geenaya ii sheeg muxuu ahaa mar kastana wixii update waan inuu soo gudbinayaa guuleysta guul iyo gownimo aan leeyahay kuwa waxay soo qorayaan Khalid Mulla ka hadal war Khalid intuu leef soo furtay dee ma dhihin libax soo dira ciidan kale ma miyuu soo furto ma soo furan idinku see ilaahay inay gala dhalinyaro qofku markuu leef soo furto oo waxa ka hadlo qofka dadku wixiga xataa ka xumaanaya runta u sheegaya ninka anigu hadduu yiri waa caawinaya ciidanka waxa dee asagay qaab kale laakiin TikTok iyo media no caawa buu soo furanayaa war waxaas waa qiyaali weeye waxaas waa iska ninkaas leef miyuu soo ninkaan hadduu anaa idin sheegaya hadduu leef soo